رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. قلب بالحق تعلق وبغار حراء تألق يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق. اقرأ اقرأ يا محمد. السلام عليكم. بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. كسر هذا ولا على البرنامج كني suubanaha naxariis nabadgeliyo dushiisa ha aatee qaybtiisii labaad waxaan ku guda jirnay ka sheekeynta akhlaaqdii rasuulka sallallahu rabbi wa salaamu alayhi. rasuulku waxa uu leeyahay inma bu'istu li utammima makaarim al akhlaaq. hadalkaas waxa inooga cad yani rasuulku inuu ku soo koobay soo saaritaankiisii oo idil akhlaaqda oo wuxuu leeyahay waxa la ii soo saaray لأتمم مكارم الأخلاق سي أن دميستيرو دبيعة wanaagsan. wuxuu ku cadanayaa hadalkaas carabtu noocan ma in ay lahaayeen dabeecado akhlaaq wanaagsan. waxa uu hadalkaas muujinayaa halka ay ka gaarsiisan tahay akhlaaqda diinteena suuban. waxaan mid u dul istaagi doonaa hadduu Ilaahay ka raali noqdo dabeecadii quruxda badneed ee suubaneed ee rasuulka sallallahu rabbi wa salaamu alayhi uu lahay ee ku dhisneed naxariista, rusheegida, wanaaga, cafinta, tawaaduca, geesinimada, cafinta, hogaamintiisa sallallahu rabbi wa salaamu alayhi. qaar kamid ah asxaabta ridwaanullaahi calayhim ayaa weydiiyeen hooyadeena Caaisha radiyallahu anha oo ku yiraahdeen wax inooga sheeg oo ka waram dabeecadii suubanaha sallallahu rabbi wa salaamu alayhi. waxa ay ugu jawaabtay oo ku tiri hooyadeena Caaisha Allah ka raali noqday dabeecadii rasuulka sallallahu rabbi wa salaamu alayhi waxa ay ahayd quraanka. كان خلقه القرآن. وحين أغسي درتي وكتري أخريا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون. أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. markaas ay ku tiri sidaas ay ahayd dabeecadii quruxda badneed ee suubanaha sallallahu rabbi wa salaamu alayhi uu lahay. sidaa darteed ayaa la dhahaa koonku waa qur'aan aamusan, qur'aankuna waa koon hadlayo. nabigana sallallahu rabbi wa salaamuhu alayhi waxa uu ahay qur'aan dhulka dushiisa socdo, qur'aanun yamshi ala al-ardi, qur'aan dhulka dul socdo oo wax walba dhaqanadiisa idil waxa ay ahaayeen qur'aanka sallallahu rabbi wa salaamu alayhi. rasuulka sallallahu rabbi wa salaamu alayhi waxa uu ahay qof tawaaduc badan, aad u tawaaduc badan oo humble leh oo aan kibir namba lahayn. marka uu qofka la hadlayo wuu u wada jeesan jiray oo physically qofkaas ayuu jirkiisa dhan u jeedin jiray. qofkaas ha yaraado amba ha weynaado
haddii uu qof gacan geliyana salawaatu rabbi wa salaamu calayh waxa uu ahaa qofka ugu dambeeyo ee gacantiisa la baxo waxa arkaysaa qof marka uu qofka kala salaamayo saddex far u taagayo ku salaamayo asaga dhanba kibir iyo isla weyn intay ka gaarsiisan tahay ma dadka masaakiinta ihtimaam ma basiinay rasuulka salaatu rabbi wa salaamu calayh waxa uu ahaa mid ihtimaam siiya qof walba waxa uu ahaa mid u wada jeesto qofka uu la sheekeysanayo oo u sheekeynayo oo physically asaga dhan ku wada jeesto qofkaas ha weynaado amba ha yaraade faqiir iyo qani wax walba ha rabay oo raba ha ahaade wuxuu ahaa markii la salaamane oo gacanta la isgaliyo qofka ugu dambeeyo oo gacantiisa la baxo salawaatu rabbi wa salaamu calayh haddii uu wax sadaqaystane sadaqada gacantiisa ayuu ugu gelin jiray gacanta qofka kale ee miskiinka asagoo qalbiga qofkaas miskiinka naxariis ku abuuray haddii uu fariisane salawaatu rabbi wa salaamu calayh waxa uu fariisan jiray meesha uu ku dhamaado majliskaas la fadhiyay kal fadhigaas waxa arkaysaa qof haddii uusan kuraas ugu horeeyay iyo kuraasta madaxda iyo uusan waaweynka helin xanaaqayo oo gafuurka taagayo oo ku hadlayo ereyo kulkulul ma taqaanin miyaa qiimaha dadka rasuulka haddii uu meel fariisto wuxuu uu ahaa mid fariisto meesha ugu dambaysa ee kal fadhigaas uu ku dhamaado weligii rasuulka salawaatu rabbi wa salaamu calayh muusan ka wahsan mana dhibsan howltiisa inuu qabsado ama shaqo qof kale oo saaxiibkiisa ama maxaa la dhahay qof kale oo muslim uu ku caawinayo ma ka wahsan mana dhibsan qabashada shaqadaas waxa uu ahaa qof caadi ah oo naftiisa u qidmeeya oo wax allaali waxa uu raba asaga soo qabsado saxaabada ridwaanullaahi calayhi mid kamida isagoo saaran geeliis meesha ugu sareyso ayaa waxa ka faniin oo ka dhacay xarigii hogaanka oo ku hogaaminay geela markaas inta ka soo degay meesha ugu sareysay geeli oo dhulka imaaday oo hogaankii qabsaday buu kor la korayo meesha uu koray sadana ku laabtay oo kore markaas saxaabi kale oo ka agdhawaayo dhulka joogo ku yiri aniga ayaa ka agdhaway maxaadan iigu dirsan waxa uu ugu jawaabay rasuulka salaatu rabbi wa salaamu calayh ayaa ibaray in aanan qof waxba weydiisan maadaama aad adiga hooshaada awoodid oo qabsan kartid waxaas adiga qabso qofna ha u dirsan gacantaada ula tag gacantaada ku qabso adiga u khidmay naftaada sidaa darteed ayuu rasuulka salaatu rabbi wa salaamu calayh wuxuu leeyahay kibir ayuu ka bari noqday qofka asaga shaqadiisa gacantiisa ku qabsada rasuulka salaatu rabbi wa salaamu calayh waxa uu ahaa mid asaga lugihiisa ku aado suuqa oo shayaashii wuxuu u baahan yahay soo gata oo gacantiisa ku soo qaato gurigiisa la imaado markii asxaabta ridwaanullaahi calayhim wadada ku arkaan oo ka codsadaan inay ka qaadaan wuxuu ku orin jiray aniga ayaa xaq u leh qaadideeda aniga ayaa u xaq leh qaadideeda رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي لكن هدي أصحاب رسول الله إسلام كفهم الآن سيدي أنك أفهم إسلام كموسى كبحين مكة محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي أدون ها هذا أم بحر فقير ها هذا أم بقني مسكين محل عليه وحور ها هذا قفك رسولك صلاة ربي السلام عليه أيره وأقبل جري ريتان كسلوية صلاة ربي السلام عليه السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله haddii uu hadlana minbarka ayaa gariiri jiray salaatu rabbi wa salaamu calayh marka uu hadlo uu ku hadli jiray jawaamicu kalim erayada wax soo kooba hadal is haysta wax cabiraya micno weyn ku fadhiyo tira ahaana yar hadalkiisu la qiimo lahayn فأتاه الوحي فأشرق اقرأ وحي صلاة رب السلام عليه مد أنا ندبنين ضدك كؤتكين نحاريس بغن فضلين بغن يسروا ولا تعسروا بشروا ولا تنفروا السلام عليك يا حبيبي يا نبي عبدي أشهادتك يسميك بدر الهن ميزيت ها أي نقل هدات ساعك عبد الله صلاة ربي السلام عليه يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله كشكانت أخلاق نيسا هي شمائشة قرحة بغن يا طيبة كتب فربضا أو لبوحيا لرسول الله محبة بالروضة
سكنت روحي وجوار الهادم